kadib markii xubnaha mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku shireen magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay soo saareen qodobo kala duwan ay dowladda ay ku dhaleeceeyeen ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay jawaab ka bixisay arrintaasi. wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa siyaasiyiinta Nairobi ku shiray ugu baaqay inaysan ku fogaanin mucaaradnimada. wuxuu sheegay Daahir Geelle dowladda Soomaaliya inay wado dadaalo ku aadan dib u iskeenista Soomaaliya dadaalkaasina aan loo baahnayn in la curyaabiyo. wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in siyaasiyiinta hanka hogaamineed leh inay dowladda soo horfariistaan isla markaana ay wada hadlaan Soomaali ahaan masaalixda ummadda Soomaaliyeed wax walbana dhameeyaan. waxaan nala siman siyaasiyiinta maanta jooga markaan nahay amba anagu wasiiradii dadka xilkahaya ha noqoto amba dadka xanaanka oo kooda diidan ama mucaaradada amba dadka hanka hogaaminta qabadhe waxaan nala siman inaan soo fadhiisano oo aan ka wada hadalno xilliga anagu xilkuna saaran yahay Soomaali ahaan amba generation ahaan oo daayirtaan weli xilkuma saarna inaan anagu isla jirno generation kale oo hawsha nagala wareego midka dibadda ma joogi doono midka gudaha ma joogi doono midka gudaha joogo oo talada haysa anagoo kale inaan midda wax u reebno oo waxa la isugu yimaadaan ka rabo midka banaanka joogo hadda hogaaminta ku jiro inuu yimaado rabana kamaa tadiinu tudaan sidaa yeesho baa lagu yeelayaa dhaqan mucaarado quman inuu sameeyo ayaa laga rabaa annagana dhaqan talin oo qurxan aan sameynaan laga rabaa haddii annagana laga waayo dhaqan talin oo xun oo quman boog lagu taalay noqonaysaa taariikh ay la soconaysa haddii iyagu dhaqan mucaarado quman oo birinta midka waa haddii ilaahay siiyo mucaarado ku imaanaysa dhaqan qumanaysa horteeda iyo aadaab iyo anshax siyaasadeed anshax qofeedka hadli maayo aysan samayn iyagana waxaa imaan doona kuwo oo gabarkaaba lagu fadhiyo oo waxay dhihi jireen xoogaa lagu daray ise yeeli jireen oo xoogaa lagu sii kordhiyey ku yimaado marka fariinta aan rabo inaan diro waxay tahay wallaahi waxaan isqaadashahay inaan inoo furay oo aan la kala adkaanayn oo ka kaa horeeyo oo qaawiso aysan labis kuu noqonayn kan ilaahay soo wada celin tirtana aadan ku guulaysanayn marka waxaan rabnaa annaga dowlad ahaan hadda waxaan wadnaa xanaan ah isugaadin waxaan damacsanaha qorshe ahaan waqti dhowaan arki doontaan xanaan isugaadin ah marka dadka hadda oo dowladaha inta tagay aan dareemayn inay sii fogaanayaan waxaan leenahay meeshaan loo baleynaysin ma jirno sii yeernaan rabnaa in laysu yimaadaan rabnaa yani maxaa yidhahdaa baabuur isbiidkaa laga badin haddaan la yeelin waxay yidhahdaa soomaalidu laba dhaxal isku haysato intay isu jirtaa lama yidhahda dadkan oo dowladda xukunka ku haysto dadkii nala hayo annaguna waxaan ahay dowladda kaliya ee adduunka ku leeyihin waxa Soomaali mucaarado dadkaysaan hal wasiir warfaafineed dhawaan Daahir Maxamuud Geelle la yidhahdaa hal wasiir warfaafineed dhawaan Khadiija Maxamed Geelle la yidhahdaa كان هذا الحوين اللي رسمه وعديد وقش محمد عبد الله فرماجة ليه لكن يقول وشير ليال وضد وحان هينا وحكوله أو نلاله أو يلان جري يلان كربت لكن أنا قلنا ما مرتين ونروح ما نروح ما نروح هنا iyagana sugitaanka iyo maaragtay inuu ku xumaado oo dhalin karka ay ka badiyaan ma aha